بسم الله. marka hore aad u mahadsantihiin shirkan jaraa'id aad ka soo qayb gasheen intaan aan ka bilaabin booqashadeedii shalay aan ka bilaabin waxaan rabaa dulmar guud in ay idin siiyo xaaladda waxa dhacay iyo sida wax u socdaan iyo ku talagalka safaaradda iyo dawladda Soomaaliya iyo dawladda South Africa sidaad la socotaan laba usbuuc ka hor ama laba usbuuc wax ka badan ka hor arrintan waxaa ka bilaabatay Durban wax ka dhaceen lagu boobay dad ajaanib ah oo Soomaalida ka mid tahay arrintaas waxay dhalisay dareen badan ayay dhalisay oo looga baqay inay xenophobia isu bedesho arrinta oo socoto oo ka soo bilaabatay Durban ka soo bilaabatay arrinta Durban ka dhacday waxa sababta ahaa dadka iska leh baawurta waaweyn taraagada loo yaqaan iyo dareewalinta ka shaqeysta taraagada ayaa waxa dhaxmaray khilaafkii dhaxmaray wuxuu ku saleysanaa dareewalinta South Africa waxay rabeen in shaqada ayaga la siiyo fursad ahaan nimanka iskala taraagadana waxay shaqaaleysteen niman ajnabi ah tiya ka bilaabatay mudaaraad iyo waxa soo bilowday kadib waxa lagu jeestay maadaama dareewalintii ajnabi ay noqdeen waxa la culeys ay nagu haayaan ganacsatada ajaanibta hala dhaco waxa lagu dhacay meesha ganacsi badan oo ajaanib iska lahayd Soomaalida sida aan ku maqalnay ilaa laba dukaan oo waaweyn ayaa ugu jirtay markii arrintaas bilaabatay dareen ayaa dhalisay markii waxay noqotay in dawladda South Africa lagala hadlo arrintaasi waxa dhacday usbuucii ugu horeeyay markii arrintaas dhacday waxa shir isugu yimid safaaradaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxba la iska weydiiyay waxa lagu balamay shir kala lagu balamay oo asina u dhacay jimcaha soo dhaafnimo jimcihii ka horeeyay waxa ka soo qayb galay safiirada Afrika u jooga South Africa iyo saddex wasiir oo muhiim ah wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka booliska ka soo qayb galay waxa la soo bandhigay baaritaan lagu sameeyay dhacdadii ka dhacday Durban ka dhacday baaritaankaas waxa ka soo baxay arrintaas hadana wax laga qabanin in ay keeni doonto xenophobia inay dhacdo aniga waxay ahayn aan Soomaali ahaan bareeraha aan ka jeedsanay waxay ahayd in la kala saaro dadka dambiilayaasha ah iyo dadka shaqaysanaya in la kala saaro South Africa way ogolaatay waxa kaloo aan ku heshiinay safiirada Afrika oo jooga Koonfur Afrika inaan haddii hal wadan muwaadinkiisa wax la yeelayo in dhammaan la isla mobilize gareeyo la isla dhaqaaqo culeys la saaro dawladda South Africa arrintaasna way shaqaysay hadda waxay abuurtay dawladda South Africa culeys badan bay ku abuurtay inay ka jawaabto qasab ay noqotay marka su'aalaha la weydiinay inay ka jawaabto arrintaasna waxa markii dambe noqotay in guddi loo saaro oo safiiro ah oo anaga hadda xubin ka nahay guddi oo task force laho guddigaas marka la hay dabagal inay ku sameeyaan markii dambe haddana waxaana soo gaaray dhibaato inay ka dhacday Strand oo Cape Town ah waxa subaxdii waxa email ii soo diray ninka safaaradda wakiilka ah Cape Town Abdullaahi Cali Xasan email ii soo diray xaaladda dhacday iyo sida wax u dhaceen iyo dhibaatadii iga soo sheekeeyay bas waxaan go'aansaday inaan galabtii aan soo baxo galabtii sabtiga ahayd inaan aan soo dhaqaajiyo si aan bal xaaladaasi aan u qiimeeyno habeenkii ayaan imid inta shalayna waxaan aadnay goobtii dhibaatada ka dhacday waxaan ku soo arkay dad Soomaaliyeed oo u badan dhalinyaro oo ganacsato ah oo aad u abaabulan oo isku xiran laakiin ka tambadisay dhibaatada markaas socotay ay ka tambadisay oo dhacday in la wada boobo mesela waxa lagu qiyaasay 58 dukaan ganacsi oo Soomaali lahayd in meeshaasi lagu boobay ayagana waxay noo sheegeen boobkaas naftirkiisa inuu ka bilaabanayo toos arrimo kale ay ka bilaawdeen arrimo dhul ay ka bilaawdeen dhul oo bannaan oo dawladda iska leedahay ayaa niman iska soo abaabulay ay soo degeen niman kale ayna ku soo kordhageen ayaga naftirkoodii marka dawladda fargelin ku soo sameeyay oo meeshii ka dhashay mudaaharaadyo iyo ka dhashay kadibna loo leexday in la dhaco dadka Soomaalida ah oo kaliya Soomaalida dhicitaanka la dhacayna waxa keenay waa dadka ajaanibta kaliya meeshii dukaaman ku lahaayeen ay ahaayeen marka la kulanay waxay noo xaqiijiyeen ayaga iyo dadka deegaanka iyo mas'uuliyiinta deegaankaba inay isku xiran yihiin wada shaqayn fiican ka dhaxayso dhibaatadan ay ku xun yihiin
taas ay noo xaqiijiyaan laakiin arinta ay dhacdo waxa waaye wax ayaga ka weyn dadka deegaanka ka weyn mas'uuliyadina ka weyn oo ku soo dhuunteen dad tuuga ah tiya waxa dhacday marka in la dhaco dadkii waa la dhacay wax badan baa laga dhacay wax badan baa dukaaman waaweyn oo ganacsi fiican lahaayeen baa la xiray waa dhacsiin arintan marka aan u socono waxa waa koow wax hadda jiro ama dadkii la dhacay naftirkoodii si ay dib u bilaawi lahaayeen inaan kala hadalno dowladda South Africa ganacsigooda dib u bilaawi lahaayeen waxaan kaloo u nimid inaan Soomaaliya naftirkeedii aan wacyi gelino oo xaaladda hadda taagan ay la tacaamulaan oo ka taxadiraan waxyaabaha dhacayo ilaa doorashada laga gaarayo waxaan kaloo rabnaa inaan gaarsiino dowladda South Africa inaan gaarsiino dhibaatadaasi dadka muwaadiniinteena inay ku dhaceen waxaan kaloo rabnaa dowladda Soomaaliya inaan gaarsiino in dhibaatadaasi dhacday ayna la hadlaan dowladda South Africa ay macna wax kale ma aha inay dareensiiyaan in muwaadiniin Soomaali ah meeshan lagu dhibaateeyay arinta hadda idoo kooban waa taas ujeedadeedii taas ahayd waa tahay shirkii safiirada Afrika iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Koonfur Afrika dad badan waxa ay islahaayeen dowladda South Africa magdhow ay ka bixin doontaa dhibaatada meeshan ka dhacday ama dalkan Koonfur Afrika dhacday loo geystay ajaanibta marka ma jirtaa wax magdhow ah oo laga filan karo dowladda Koonfur Afrika wallahi probabilities aada u yartahay in la saadaaliyo inay magdhow ka bixin karto sababtu waxa waaye dhibaatadan waxay noqotay dhibaato soo noqonaysa noqotay ma ahana dhibaato oo ku wajahan hal qowmiyadood ku wajahan ma noqonin waxay taabatay marka South Africaankii iyo ajaanibtii way taabatay marka waxa kaloo jiro system hadda oo la raaci karo hadii la dhaxta magdhow la bixina system hadda oo registered oo ama la diiwaan geliyo horta wixii ma jiraan wax aad u dhib badan in la dhaho dowladda South Africa magdhow ay bixin kartaa waa wax macquul ah ilama aha mana u diyaarsan sababtu waxa waaye wadankoodii dadkii u dhashay naftirkoodii ayaa dhibaatadii saameysay oo la dhacay oo dhibaato ka soo gaartay marka waa waxyaabaha aan hadda oo ku adkayno haan dowladda South Africa waxa waaye in dhibaatadan aanan joogto noqonino dadkii la badbaadiyo taasina waxay balan qaadeen inay dadaali doonaan isla markii xataa oo aan anoo shirka fadhino waxyaabaha dhacay markaan u sheegnay isla markii inta isoo waceen booliiskii la wacayo howlgeliyeen waxbay ka qabteen magaalada hadda idin sheegay hadda Witbank la dhaho markii la igala soo hadlay aan shirka ka sheegnay isla markii waxay waceen ninkii area commanderkii waceen waa u sheegeen markii dadka la hadlayna waxay dhaheen booliiskii hadda hortaagano oo dadkii hortaagan yihiin marka South Africa wax ka qabasho mooyee wax magdhow ah hadda laga filan karo horta ma jirto waa tahay waxaad soo sameyseen qiimeyn waxaadna booqatay shalayto meelihii dhibaatada ay ka dhacday waxaadna ku sheegteen dukaamada Soomaalida ah ee deegaanadaasi laga boobay qiyaas ahaan 58 dukaan hantida ku jirta imisa ayaa lagu qiyaasi karaa dukaamadaas la boobay wallahi waxaan ku soo kala tagnay ayagoo isku qiimeynta ma dhamaystirna oo lacag ahaan looma qiimeynin weli laakiin ninka gudoomiyaha ah oo meesha joogo shirkana laga qayb galay iyo dhalinyaradii ganacsatada ah shirka ka qayb galeen ayaga gudi intay saareen gudi qiimeyn ay saareen in qof loo soo qiimeeyo oo la dhaho qofkaas intaasa ka dhuntay qofkaas intaasa ka dhuntay marka ku talagalkeeni oo aan sameyn karno waxa in aniga isku tashana mooyee inaan aanan ku tashan karin dad kale aan ku tashan karin hadda cabsi ayaa weli taagan maxaad kula dardaarmaysaa jaaliyada Soomaaliyeed ee ku jira deegaanada isku raranka ah ee xilligan dareemaya cabsida xooggan waxaan u soo jeedinaa waa fursad qaali ah waxaan u soo jeedinaa dadka Soomaalida ah inay muujiyaan taxadir badan ay muujiyaan waxaa jira xaalad oo degdeg ah oo siyaasadeed ayaa wadankan ka taagan oo ah doorasho soo socoto doorashada meel hadday ka dhacayso Afrika gaar ahaan waxaa markas la filanaa rabshada inay dhacaan ayaa la filanaa marka ganacsatada dadka gaar ahaan kula locationada kula ganacsiga inay taxadir badan ay muujiyaan markay arkaan saansaan boob ah soo socdo inay isla markiiba digtoonaadaano qalab alaabtoodii kala soo rartaan ama xataa la dhimo waxaan kula talin lahaa xataa dukaamada camiran oo locationada ku yaalaan intii doorashada ka dhacayso
camraantii hoos loo dhigo oo ay tamidii ha yaalaano laakiin haddana meel oo u dhow la gaari kara bakhaaro oo kale in la dhigo kadibna sidaas ganacsiga lagu sameeyo laakiin ma ku telinayo qofka intuu iska dhex fadhiyo dukaan camran mar kasto aanan la soconin xaaladana aan la soconin number 1 ama arinta ugu horeysa laga rabo waxa qofka ganacsiga xaaladda inuu la socdo xaaladda ku soo socoto inuu ogaan karo 2 maalin 3 maalin soo socoto maxaa dhici kara inuu saadaalin karo hadduu sii saadaaliyo wuxuu yareyn karaa dhibaatada dhacaysa ayuu yareyn karaa sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo dhalinyaro badan oo waliba reer qowteen u badan oo markas is abaabula oo ka jawaaba maxaa la dhahay dhibaatooyinka dhacaan oo dadka u gurmada oo soo badbaadiya dhalinyaradaasi hawl badan ayaa waxay u qabtaan si volunteer ah u qabtaan waana ku dhiirigelinaynaa safaaraddan nahay waan garab istaagannahay waan ku dhiirigelinaynaa waan ku ammaanaynaa ayagoo cidna u dirin marka wax dhacaana ay iswargeliyaan ay u gurmadaan waxaa kaloo ammaana dhalinyaradaas oo abuuray qolol lagu wada xiriiro oo WhatsApp abuuray maalin kasta oo ay isku wargeliyaan khatarta soo socoto waxbaa soo socda waxbaa xagga taagan naftirkeeda waxay ka geystay qayb weyn ayay ka geystay amniga dhalinyaradaas aad ayaan u ammaanaa culimadana waxaan ugu yeeraa inay sameeyaan wacyigelin ay sameeyaan dadkii laga wacyigeliyo in xaaladaha jiraan inay la tacaamulaan iyo inay abuurin ayaga naftirkooda nabadgeliyo xuma inaanan abuurin Soomaalida inaanan abuurin laga wacyigeliyo waxaa kaloo oo aan rabaa inaan meesha ka sheego in dadka isku dayaya markii ku soo aruuraan dad ku soo socdaan inay isdifaacaan difaac ma noqon karo qof ma difaaci karo 100 qof oo ku soo socoto markaas oo kale xeelad uu asiga naftiisa ku baxsan karo inuu sameeyo inuu dib kala geysanin inuu dad dilin inuu way taas nafskeed qaybay ka noqonaysa nabadgelyo xumada marka taasna waa ka digaa in laga digtoonaado inaan la isdifaaco in la isku dayin mar haday arinta faraha ka baxdo adiga naftaadii badbaadso laakiin naf kale hadaad wax yeesho waxay noqonaysaa marmarsiinyo kale oo adiga lagu dili karo dadka kale dhibaato ku soo gaari karto la dhigi karo waxa Soomaaliya sameysay qof Soomaaliya sameeyay laakiin Soomaaliya sameysay Soomaaliya dhana dhibaato ka soo gaaraysa taasna in laga taxadiro waa mahadsantiin idinka mudan okay